Welcome to Mogadishu Cooking, the kitchen for Somali delicious food. cuntada macaan Soomaalida. waan idin wada salaamay dhammaantiin akhyaar ay kusoo dhawaada muqdisho cooking. maanta waxaan inoo sidaa chicken cheesekaas oo cheese la dhex gelinayo insha allah haddii ilaahay iraado ila daawada insha allah sidaan u sameyn doona haddii ilaahay iraado. halkan waxaa ii yaala blade ay igu jiraan halkaas waxaa igu samaysmaysa sabaayad lagu cuni lahaa chickenkan. halkan bladekan waxaa igu jira oranjiga ah waa roodi shiidan iyo basbaas. madibadana waxaa igu jira waa cheese. bileedka kale waa bur ama daqiiq. kan kalena waa beed ama ukun baa igu jira. bileedkan waxaa igu jira waxa weeye chickenkii aan ka sameynayay weeyaan maxaan idhaahdaa cheeseka aan dhex gelinayay. marka chickenku waxa weeye chicken brace-kaas ayaan waxaan sameeyay waxaan usoo jaray steak-kaasaan maxaan idhahdaa steak burburan dhexda ayaan ka saafay. maxaan idhahdaa halkan bileedkan kalena waxaa igu jira waxa weeyaan waa roodi chicken aan nooc kale u sameyn doona insha allah. chickenkan markaa waxa weeyaan chicken brace-ka oo burburan aan soo yara burburay waxa weeyaan steak aan usoo jaray soo yara burburay kabacdi dhexdaan ka jarayaa cheeseka ayaan dhexda ka gelinayaa. waniga waan soo qaaday chickenkii cheeskii ayaan iminka ku guray. cheeseka markaan ku guro insha allah waan isku daboolayaa. marka aan isku soo daboolo wax kale kuma dhejinayo isagoo uunbaan saa isku yara riixriixayaa isagaana isku dhigaya insha allah waad arki doontaan dhamaysta insha allah markaad dhamaysatid waad arki doontaa haddii ilaha yiraahdo. waxaan soo qabanaya tii kale chickenkii kale iyadana waxaan gelinayaa cheeskii. marka insha allah waxaan idin tusayaa xabadaas dhexe iyo tan weyn iyo tu kaloo yar iyadana sidaasoo kale aan u sameynayo. marka chickenka aan cheesekaada dhex gashay wallahi maasha allah aada ayuu macaan yahay. anigu waxaan sameeyey in yaroo milixa ayaan kusoo masaajiyey oo biyo yar intaan ku walaaqay masaaj ahaan saasoo kale ugu soo duugduugay milixdaasi lafta uga gasho. maxaan idhahdaa halkan waxaa igu jira waxa weeyaan kii yaraa waaniga isagana waan dhexgeliyey because waxaan rabaa ka yar iyo ka weyn iyo kulli inaad aragtaan sida aan u geliyey. bileedka waxaa igu jira waxa weeyaan sactar milix kariboda iyo barbarika iyo daqiiq intaasaan isku walaaqayaa. kabacdi chickenka ayaan saarayaa chickenkan dhinacan kaga rogayaa. maxaan idhaahdaa markaan dhinacan kaga yara rogo oo arko inuu yara qalalay baa waxaan ku ridayaa beedkii ku dhex ridayaa ama ukuntii. ukunta markaa waxba kumaan darin waa ukuntii oo keligeeda ah waan ku yara diisdiisay saasaan ugu yara riixriixaya cabaar suu lafta uga galo. maxaa la yidhaahdaa kabacdi haddana waxaan gelinayaa roodhida. marka aan roodhida geliyo oon roodhida ay cabaar xagga waad aragtaa sidii inuu qalalan yahay oo kale aad moodaa. maqliga waxaan kusoo shubtay saliid yar maqligii ayaan ku dhex riday tii hore. maxaa la yidhahdaa oo dabka ii saaran wax yaroo saliida aan ku soo mariyey. tii labaad markaa insha allah waa aniga iyadana aan iminka beed ka dhex marinayo. markaa chickenkan waxaad ku cuni kartaa sabaayad sida shawarmadoo kale ayaad u jeexjeexi kartaa isagoo cheeskii kugu dhex jiro. hadda marka dhexda laga jaro cheeskii ayaa dhexda kasoo daadanaya oo qurux badan maasha allah aad ayuu macaan yahay softina wuu noqonayaa. maxaa la yidhahdaa dusha sare na wuu ka casaanayaa wallaahi ma ka sheekeyn karo aada ayuu macaan yahay. qof soo dhadhamiyey oo keliyata ayuunbaa garan karaa. insha allah qofkii soo tijaabiya please ha iisoo sheego maxaa la yidhaahdaa commentiga ama maxaa la yidhaahdaa commentiga ha igu soo sheego insha allah. waa kan maqligii waan soo saaray tii horaan soo saaray tii labaadna waan igaan saaray iminka. marka yara casaato ay noqoto sida taas oo kale ay u cas tahay ayaan ka saaray labada dhinac baan u yara rogo. waxaan soo qaadanayaa markaa birta la gasho ofinka la gasho markaa waxaan dul saaray almunionka sababta aan u saaray birta inta badan marka wax lagu dubo way madoobaatay ama way foolxumaatay laakiin almunionka markaad saartid haddaad 4 sano 5 sano haysatid waxay noqonaysaa cusayb inay cusub tahay. birtaa yare meesha igu dhex jirtana digsi ay la socotay digsiga maxaa steamka markaa waxbaan ku qalqalajiya iyada markaan ofinka aan galiilada ku sameynayo kale ayaan geliyaa inta badan
wakaa saliid yar ayaa ka dhacday inaad ujeedadii in kala maaqan inkastoon si fiican loo arkeynin maasha allah. maxaa la yidhahdaa imkan waxaan ku gurayaa bileerka insha allah waan isla arki doonaa sida ay noqoto waana kala jaraya waad arki doontaa dhexda jiiska kasoo daadanaya insha allah ila dhamayso. Thank you for watching Moqdisho Cooking. Please don't forget to subscribe, like, share and comment.